بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان با ولا لها شرفت بدن كوميديسن جروب استغفارتي يسلق النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله إلهي بمحل سبحانه وتعالى أو إنه لما يسري أو إنه قارسي أو إنه سمي إنه نوريجي كوباد أذكرتي إنه كقولي سنو إنه أخرنا oo aynu carabkeeni tababarno alxamdulilah waxaynu u soo gudbaynaa wareegga labaad insha allahu tacaala wareegga labaad waxa aynu ku dadaali doonaa sidii aynu u tababarnay carabka in aynu haddana u tababarno qalbiga oo isagu qofka oo aamusan oo aan carabka dhaqaajin bishimihiisa ama dibnihiisa aan dhaqaajin oo afka isku haya oo carabka ilka ku qabanaya sidoo carabku u dhaqaaqin inuu isku dayo dikriga inuu marka hore intuu ku dhawaaqo oo akhriyo inuu qalbigiisuna u dhawaaqo qalbigu waa uu hadlaa uu dhawaaqa marka dhawaaqa qalbiga ayaynu isku tababari doonaa biidnillaahi tacaala waxaan ka horeysiinayaa markaas oo aan hordhac ka dhigaya insha Allah walaalo badan alxamdulilah si wanaagsan ay barnaamijkii ay waqtigii fiican u geliyeen uguna guuleysteen in nidaamkii loogu talagalay ay raacaan waliba qaarkood ay ka sii badiyeen Allah subhanahu wa ta'ala uu waafajiyay walaalaha qaar waxa ay ku yara noqotay culays wax kalena ma aha ee nafta iyo shaydaanku toona ma ogola wixii wanaagsan iyo khayrka ma ogola saas awgeed baa waxa loo baahan yahay in aynu ka adkaano walaalaha qaarkood waxay dareemeen sidoo kale waxoogaa juuc ama xanuun ay dareemeen marka walaalaha sharafta badan haddii aad dareento ama cabsi ama aad dareento xanuun iyo arrimo noocaasa oo caajis ah waxa weeyaan wardigan waa wardi ku anfacaya shaydaankii dadka dhibayay ayaa waxuusan ogolayn in aad camalkan sii wado saas awgeed waxaa loo baahan yahay inaad ka adkaato shaydaankaas inaad ka adkaato sideed uga adkaan karaysaa laba dariiqo oo soo socda ayaan kuu sheegayaa waxaad samaynaysaa inta aanad dikriga bilaabin waxaad akhrinaysaa acuudu bikalimaatillaahi taamata min shari maa khalaq acuudu bikalimaatillaahi taamata min shari maa khalaq acuudu bikalimaatillaahi taamata min shari maa khalaq 100 jeer ilaa 300 oo jeer kolba kii aad awoodi karto haddaad 100 awoodi karto 100kaas dheh acuudu bikalimaatillaahi taamata min shari maa khalaq haddii kale 300 aad awoodi kartana 300 oo jeer dheh acuudu bikalimaatillaahi taamata min shari maa khalaq waxaad kaga badbaadi doontaa jinnigii yacni waxyeeladu digriga aad samaynaysaa isagay gaadhaysaa ama shaydaankii gaadhaysaa adiga dhibaato kuma dareemi maysid walwalka iyo cabsida iyo waxaas argagaxaas iyo jinka ayaa argagaxaya kaasa marka qofka saameyn ku yeelanaya markan hore laakiin waxaad samaynaysaa acuudu bikalimaatillaahi taamata min shari maa khalaq walaalaha yaqaana adkaaru sabaaxi wa masaa adkaarta la akhrisanaya subaxdii iyo galabtii ha laasimaan walaalaha kalena ha bartaan insha allahu tacaala adkaaru sabaaxi wa masaa khadka ku qora waad helaysaan la akhriya waa baranaysaan insha allahu tacaala saas hala yeelo markaas waxaad u baahan tahay adkaarta intaanad bilaabin ka hor wardigaaga intaanad bilaabin ka hor acuudu bikalimaatillaahi taamata min shari maa khalaq inaad 100 jeer tiraahdo ilaa iyo 300 insha allahu tacaala aad akhrido intii kolba ilaahay ku garsiiyo subxaanahu wa tacaala taas waa dariiqa koobaad dariiqa labaad insha allahu tacaala waxa weeye waxaa loo baahan yahay in qalbiga la tababaro oo aynu adkaarta aynu akhriyayno haddii ay saliga nebiga calayhi salaatu wassalaam ay tahay ama haddii istighfaarta ay tahay kii aad markaa wardigaagu rasmiga uu yahay waxaad samaynaysaa labadabana waad samayn kartaa marka aad qalbigaaga u barto marka hore waad ku dhawaaqaysaa tusaale ahaan astaghfirullaha alcadiim alladii laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum wa atuubu ilayhi cadada khalqih ورضا نفسه وسنة عرشه ومداد كلماته وصيغة استغفارته لبعض يعني سيد الاستغفار مركي لقي معدو oo dheer saasadaad idad qal yani carabkaaga ugu dhawaaqdo istighfaartii
kadibna aad carabka xidho afka bishimaad isku qabanaysaa ama dibnaad isku qabanaysaa carabka ilkaad ku qabanaysaa suusan u dhaqaaqin intiibaa waxaad dhegaysanaysaa indhahaaga xidh dhegahaaga waxaad u furtaa qalbigaaga dhega laabu dololay noqonayaan dhegahaaga qalbigaaga u fur isla dhawaaqaagii ayaa waxaad ka dhex maqli doontaa qalbigaaga dhawaaqaaga laftarkiisii ba qalbigaa dhawaaqi doona marka aanu digriyayno carabku waxa weeyaan digrigii buu ku dhawaaqayaa qalbiguna waa u cabaya marka carabku waa u aamusaa laakiin qalbigeennu ma aamuso digriga hadduu barto adoo hurda ayaa qalbigu digriga u wadaya waxaana dareemi doontaa runtii xasilooni iyo farxad iyo awooddaada gudaha oo xoogaysata waad arki doontaa marka waxaan ku bilaabi doonaa 66 jeer maalintii intaasaan ku cusboonaysiinaynaa digrigaagii hore hadduu saliga nebiga ahaa oo 300 ahaa 300 baad wareegan labaad ku soconaysaa laakiin waxaa dheeraad ah 66 jeer oo isla digrigaa ama wardigaa aad wado laftarkiisa aad qalbiga ka dhahayso marka waxaad u qaybinaysaa 21 gelinka hore waqtigii doonta ilaahay ku waafajiyo 21 gelinka dambe 21 habeenkii intaas marka aad samayso waxa kuu suurta galaysa inaad sii wadi karto oo aad qalbigaaga sii wadi karto laakiin 21 waxaan ku xadaynaynaa kaliya waxa weeyaan tababarka ayaan ku xadaynaynaa biidnillahi tacaala marka haddii istighfaarta aad waday 2500 baad sii wadaysaa inta ilaahay ku karsiina waad ku dari kartaa laakiin waxaad hadda ku dari doontaa barnaamijka tababarkii qalbiga 66 jeer oo istighfaarta aad qaadato haddaad istighfaarta gaaban qaadato astaghfirullah alcadiim wa atuubu ilayh ay tahay taas laftarkayga qaabkaasaad u akhrinaysaa insha allahu tacaala markaad ku dhawaaqdo waxaad xili doontaa afkaad xili doontaa carabka dhaqaaqka joojin doontaa qalbigaad ka dhawaaqi doontaa taasaa kuu suurtagelin doontaa haddii ilaahay qadaro inaad ku guulaysato insha allahu tacaala in qalbigaaguna tababarkaas qaato wareegan labaad waxa aynu bilaabaynaa inaanu isticmaalno awooddeena daakhilka awooddeena gudaha oo ah awood aad iyo aad u badan isla markaana insha allahu tacaala qalbigeena aad ka dareemi doontaan xasilooni iyo macaan iyo dhadhan aan caadi ahayn insha allahu tacaala ilaahay khayrka hayna waafajiyo walaalayaal marka qof kasta oo xoogaa ama daal ama culays ama wuxuun dareemay insha allah waxaan rajaynayaa in uusan qaabkan samayn doono oo uu acuudu bikalimaati illaahi taamata min sharri maa khalaq u 100 haddii uu karo haddii uu kasii badin karo ilaa 300 uu akhriyo intuuna wardiga bilaabin acuudu bikalimaati illaahi taamata min sharri maa khalaq kadibna wardigiisa uu wato waxaanu dareemi doonaa fudeyd biidni illaahi tacaala camalka saalixa allah subxaanahu wa tacaala ha inaga aqbalo dariiqa saxdaana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ina waafajiyo hana inaga dhigo kuwii wanaagga iyo samaha isku ka aalmaysta allahuma salli calaa maxamed adduunya iyo aakhirana liibaana waxaan intan uga faa'iidaysanayaa fursaddan dhammaan walaalaha ay xanuunsan iyo walaalaha ay caruurtu ka xanuunsan yihiin iyo walaalaha muraadada kale lahaa oo ducooyinka soo dalbanayay ducooyinkii u dambeeyey iyo kuwii hore iyo kuwii dhexe intaba in allah subxaanahu wa tacaala qof kasta oo inaga mida muraadka uu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala uu siiyo عاجلا غير آجل بإذن الله تعالى اللهم صل على محمد وحكى الله ولا لنا سكودر دارينا صبرك إيا دلقاتك إيا إن أينو إسبرنا محانكو لحظة إنينو إلهي سبحانه وتعالى حسكيسة أينو بذنه انتي أينو كرنه أو أين نفتينا كتبابرنه برنامج كان وريق لبعض أو تبابرك قلبك أو ديقريق اللفتركيسة كتبابريسو inaad samayso marka insha Allah bal waxaan idinka sugi doonaa jawaabaha markaad soo qoraysaan tababarkaas haddaad ku guulaysato oo qalbigaaga dhawaaqiisa aad maqasho ay soo qori doontaa 12kaas insha Allah taala wala mahadsantiin tani inta barnaamij kale iskugu iimaanayna waxaan kaga tagayaa astuudicukum Allah alladhi la tudiicu wadaa'i'ahu fi amaan Allah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid